سلطان خير قبايمي من سعيم بايمي مدحوينه سحر dadku wada saxeen oo la sugaayay baa yimi socdaalkaaga dheera waa lagu sugaayo lagu saadinayo lagu saabtumaayay soo dhaw sultan soo dhaw madaxweyne maslaxada Soomaal adiga mas'uulka oo lagu maamus madaxweyneenu شعبك دور ويمي وصوبنا بحي وري ما نعرف واني قالية وعجيبة وحلينا شنطة سنة مقرتين مدحوينة قول بعورة جاينا قول سولوينتا مدحوينة هنا ما أنت بركة واحد نوم وغطاه فعل وناكسن شعب وناكسن ضد وناكسن يسولوين وناكسن وحنا مركب ما أنت آمنسنهاي مدحوينه وقول بري هرتا مدحوينه وقول بري مدحوينه وقول بري مدحوينه وقول بري لا في ما يوم مدحوينه بندجيف تاس وركا هرتا وحنا نقول بشارين إن شعب كيجا عبد العزيز مركان يكورمه مرشح مدحوينه وأنن آت سامينتي سنوله عيد والبنا فره سولوين له شعب كيسا يدد كيسنا هياك سنايا وحلو ملاينا أنا ويدين شرحي معي عبد العزيز نول بوكا كدرك سيهاي ما أنت لو وحن لهم مغضي إفتين أنا مدسويني وكنت أمينيني وأنا إسبدل دلكو وإسبدل دلكو وجانجي وإسبدل ويه Soomaaliya maanta waa maalin weyn waa maalin aad u qurux badan waxaan soo dhaweynaynaa musharax madaxweyne oo dhaarinta u dhimata kaliya u dhiman madaxweyne asoo dhaarinaya ayaa arkay aan ku riyooday marka taa waa kuma sintiin sida uu sheegay nabadoonka 17 xildhibaan ayaa la isku ayaan lagu agteena waxa laga dhigi jiray wax oo culus laakiin hadeertaan 22 xildhibaan oo gobolka bari haysanaa marka waa madaxweyne gobolka bari ka soo baxay waa astaan qaran marka suldaan afgaduud waa nin mas'uul waa nin umad la yaqaan waa nin samafale waa nin suldaan marka waxa soo isku darsaday marka ilaahay barakeeyo سلطان خير قبايمي من سعيم بايمي مدحوينه سحر dadku wada saxeen oo la sugaayay baa yimi socdaalkaaga dheera waa lagu sugaayo lagu saadinayo lagu saabtumaayay soo dhaw sultan soo dhaw madaxweyne intaasaan leenahay ma ila qaadateen hoggaan Soomaaliyeed wayo oo la hubo hoggaan Soomaaliyeed wayo oo la hubo haraaci daaroodo hambalyanu ku sidnaa haraaci daaroodo hambalyanu ku sidnaa taniyo harariyo hawasiyo hobyo iyo mudug taniyo harariyo hawasiyo hobyo iyo mudug hawada sooliyo sanaag helashi karkar hawada sooliyo sanaag helashi karkar hartiga bari joogi hambalyay kuleeyihiin hartiga bari joogi hambalyay kuleeyihiin majaraha u qabo Puntland oo ha kala midayn majaraha u qabo Puntland oo ha kala midayn marorka ilaaliga harsi masare marorka ilaaliga harsi masare بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka ugu horeysa mar labaad baan ka cudur daaranayaa waxa yeelay astaanta kaliya aan kaga duwanaa murashaxiinta waxa ahayd inaan hooyooyinku guryahooda ka soo bixin haddii saa ka fursan weydan waxaa noqon doona qofka ugu dambeeya oo goobtaan ka taga inta hadday ka timaado anigu iskiin bari maayo reer bari baan ahay waxaan dugsiga hoose dhexe sare aan ku dhammaystay gobolka bari waxaan ku dhammaystay magaalada Boosaaso marka Boosaaso de si gaar ah abaal igu leedahay walow aan isleeyahay iyadoo aydan dirsan baan abaalkii guday anigu sidaan isleeyahay haddana abaal bay igu leedahay waxaan rajaynayaa markaynu ku guuleysano xilka inay abaalkeeda ay hesho taasaan rajaynayaa waxaan kaloo rajaynayaa in xukuumaddu haddii aynu ku guuleysano hoggaankeeda inaan dhiig cusub ku shubi doono
haddii alla idmo oo ka wanaagsan kii 24 sano ee Puntland iyo 9 sano ee ka horreysay anigu aan goob jooga ahay oo intiina badan aydan joogay hoggaanka aad u baahan tihiin waa hoggaan idin jiheeyo weeye waa 33 sano oo caaqilku uu soo hoggaaminayay wuxuu raadinayay hoggaan ka duwan guriga uu ka soo jeedo in Puntland laga helo maantuu taagan yahay qof iyo cod baad doonayseen aabihii qof iyo codka inaan ahay waad ogtihiin oo aad ku qaadateen isbeddel baan doonaynay markaan arkay markaa isbeddelkii qof iyo cod halkuu marayay inaanu jirin ayay noqotay inaan 66kii u soo noqonno 66ka marka cidda laga rabaa isbeddelka ayay tahay waa reer bari marka abtigay labadiisa shaar buu iska qabayaa kiisii reer barinimadu gashanayaa insha Allah biidillaahi kariim ninka rabta baan leeyahay xukunkiisaan la yeelaa waraga ila sharaxan waad ogtiin wayna soo xukumeen waad aqbasheen maanta inaan xukumaan u taagnahay haddii aqbali waayaan maxay idinka go'aana shacab ahaan dabcan inay aqbalaan weeye marka warka waa idinku badiyey waxaan rajaynayaa haddii xilka aynu ku guulaysanno inaanay jirayn gobol ku noolaan doonaa ee gobol waliba uu si gaar ah u noolaan doono insha Allah biidillaahi kariim iskuna tashan doono xaqiisana aan siin doono aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dib baynu ka sheekaysanaynaa insha Allah biidillaahi kariim